السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى. يا مهله بفضل ومنه وإحسانه الله سوق السلام كان لنا أول آخر بين آدنا قد جي سأوكل أجرنا محا سحن محا قلدا محا أسو جوكت محا كم مغني وكم عادقة هاي برجع الله هل ساشلي هل سيدك كم حيد دين حيد دنيا حل يسكو هيستا حقين اللي جيمت حقين اللي جوجا محا عصب يا اللي جتجي waxaan anugu la hadlaa badanaa sida guud caaqibada sida gaarna beesha aan ka dhashay ee habar gidir. That's why aan u doonaynin inaan view badan helo. That's why aan u doonaynin in dad badan daawadaan. That's why aan u doonaynin sababtoo ah waxa aan ka hadlayo specific waaye. dad baan la hadlayaa haddii la waayo aniga dadkaas aan qiimahooda ku xiranahay. dad baan la hadlayaa la dhumiyey sida guud waxaan rabaa inaan dhaho dadka reer Somaliland geel diday maahan oo do laguma celin karo. geel diday dareen arag kadib maxaa lagu celiyaa ma maradii oo ka didaa lagu bitiyaa maya. dad diday ka waran oo laga daba qiiliyey waxaan ku gaabinayaa nimanka culimada sheeganayo shalay meesha taagnaa iyo nimanka Somaliland aqoonsaday isku xiriir waaye isku meelna waa ka shaqeeyaan laakiin ina fahamto ku aragta sida awgeed waxaan rabaa anigu fayrisay anta fayrisna waa aan u soo noqdo marka nuqda saaqina. This is my point. Soomaalidu waa isdagaashay ayagoo qabaa'ila. Soomaalidu waa kala riixatay dhul baadiya. Soomaalidu waa isdagaashay iyadoo magaalo joogta oo dawladnimo ku dagaalaysa. Soomaalidu waa isdagaashay iyadoo inay isxukunto isku dagaalaysa. hawiye waa isdagaalay, daarood waa isdagaalay, raxweyn waa isdagaashay. Soomaalidu waa isdagaashay. markay isdagaashay waa isburburatay cadow way isu soo raacday markii dambe. Soomaalidu markii ay haddii ilaahay ku leeyahay qabilaadka la kari waayey oo guulaystay habar gidira qabila qabilaadka la guulaystay oo la kari waayey isaaqa kamida bartoodi joog. qabilaadka guulaystay waxaa kamida maxamuud salabaan oo ma jirteen bartoodi joogin ay ku. qabilaadka guulaha goobay waxaa kamid ahaa ogaadeen iyo mareexaan oo socday ku dhibtooda kismaayo. waxaa kala taageeri jiray habar gidir mar ogaadeen wadni marna mareexaan. ma jeerteen waxaa taageeri jiray dhulbahante annaka habar gidir waa la dagaalnay waa dhibaataynay cid walba waa isdhibaataynay qabiil koob nagama qaadin annaka 10 gabdhood oo habar gidira ma aysan ooyin in the history xasan sheekh qoor. haddaba maxaan u jeedaa habar gidir waa duuleen iyadoo ciidid horkacay bay dhabay tageen. habar gidir waa iskhilaaftay. raxan weyn waa baxeen maadaama habar gidir ay kari waayeen Itoobiya soo wateen maadaama habar gidir ay oroma keentay. meesha nuxurka aan u jeeda haddaan ku bilaabaya. habar gidirtii xuseen ciidid la socotay xuseen ciididna uu qarxinayay si kasta ha loo dhammaystiree waxaa lagu dhammaystiray markii qabiil ahaan raxweyn u adkaa weysay inay garab doontaan. garab doonashadan ka hadla waxaas ayakaa bilow min dhammaad waxay keeneen cabdullaahi yuusuf inta baxo inuu Itoobiya garab u ka weydiisto abgaalkii xamar laga buriyo habar gidir ka burisay iyo majartinkii la isla riixay inay garab ka dhigtaan Itoobiya xamar yimaadaan iyo qayb habar gidir kamida oo ayakuna ka cararay wixii waa ku dhaga beelnay. shanqara nagu gashay boqolaal kuna nooga dhimatay taariikh bacdaan ka qaadnay. Soomaalida marka hadday raxan weyn yihiin hadday abgaal yihiin hadday majarteen yihiin hadday isaaq yihiin hadday ogaadeen yihiin maadaama qabilaadkii lagu kala adkaan waayey ama laisku ag dhacdhacay isbahaysiyay goobteen. only habar gidir stiil waxay joogaan 2095 93 bartii joogaan.
qaramada midoobay qalin maraykan garijira la joogaa garijir waa boqol yuhuudiya war ma hayaan gurceelaa la joogaa habar jina gedigaan deganta ayaalna gedigaan degma maahan war ma hayaan gallisoonaa la joogaa waa boqol yuhuudiya rag baa biirinayo war ma haysaan gallisoonaa la joogaa waa boqol yuhuudiya maxaa nolo kugu tiraa xasan sheekh maxamuud xali markuu khudbaynayay madaxweynaha maraykanka waa u mahad celiyowha he's abgal he knows very well about the political chaos and what is going on in the world and the tragedy and the waa yaqaanaa ninkan jamaale waa waaye 93 ingiriisku ku hadlaya caadi maaha laakiin ma baratikayn hadduu waayaan waa asaqaan aniga way ogtiin 94 95 96 98 waa taqaani anu turjumaayay isku soo duuba hore aan uga socdo macnaha xiise badan ingiriis uma qaba aniga laakiin waxaan rabaa inaan ku dhaho marka shidaalkii galmudug waxaa iibinaya madaxaana furan waa nin jarroona haddii ilaahay ku roon yahay fahad yaasiinna wuxuu rabaa inuu soomaaliya qabsado waa nin aw xasana yoo wataa qatar kana yoo wataa turki taliyaha immigrationka ninka ceyrka looga qaaday mursado waxa wata la socdaa imaaraad that's why 1 hour uu u joogay ninkii imaaraadka ahaa airbortka xamar taasoo xasan sheekh maxamuud hore oo lacag uga qaatay imaaraadka in dadka imaaraadka ay wataan aan la baarin private mail ah waa adiga baarin soo nama dhinaca ka dhacday imagine waa u soo noqon doonaa kalluunka galmudug waxaa iibiyey gabar dhulbahantaa iyo ninkeedu jamaal yiraahdo reelaas qoraya oo baalkiya kalluunka galmudug waxaa iibinaya gabadha looga qaaday waalaha sacad habar gedir safaaradda jaynaha weli sacadabadii ruuxaya bal cid ay ku xumanayeen ma aqan taliyaha madaxtooyada waxaa laga qaaday ku-xigeenka nin saacada waxaa loo dhiibay dhulbahante oo maxaa loogu dhiibayaa xasan sheekh maxamuud wuxuu respecti garaynayaa oo kursiga mustaf dhuxulow loogu dhiibay inuu imaaraad xiriir leeyahay madaxaano furan xasan sheekh maxamuud wuxuu kor ugu sitaa inuu turkiga xiriir leeyahay jamaal iyo naagtiisa jaynaha inay jayna xiriir leeyihiin cali balcad inuu etoobiya xiriir leeyahay xasan sheekh maxamuud habargedir wuxuu ka ilaaliyey hal qolo oo caalamka inay heshiis la noqdaan fiqiyaa la dagaashan tahay somalilan iska dhaaf dibad waa nala ka xiray dalka gudihiisa indha caddaa ku jooga dhuhuudan ku tukanaynaa unuka waxaan ku tukanaynaa hore indha cadduu beenta maa naga dhaaftay gabdhaha habar joog tarbuunka laga oysiinaya maxaa u qaban kartaa beenta maa naga daysid indha caddow aadan cayrow iyo adiga iyo xasan daahir goobaan le maantay waxaa nool bishaar abshir geedi becel faarax barre rag kalaa nool badan waxaan hubaa jidka warshadaha in ilin indhihiisa aan ku hubaa ninkii la dhihi jiray ninkii geesiga ahaa ilaahay naxariista jannaha siiyo goobaan laha wuxuu la ilmeeyey xaaji kamsiinoo wata goobaan le jamaalna waa taliyaha ciidanka isbartiibada qori 75 oo aan qabiilku noo gadeen ayaa gaari saaraynaa isbartiibadeedaan joogaa ani iyo bishaara waxaan ku aragnay khaliif cadale meeshii la dhihi jiray oo aadan cayru la soco jiraan waxaan ku aragnay dagaalkii amxaarada socda warshada baastada dir baa soo taagan markaasaan nir waa maxay shaabka meesha jooga dagaalayna geliyeen balayna geliyeen marka waxaan ka wada hadlaynaa saasuu goobaan la yiri marka wuxuu yiri kismaayo ugu yimaada aadan cayru gaari qooqan iyo 4 daba jeexan soo sii saaka dhul ma hayno dekad ma hayno ciidan ma hayno xaaji kamsiina haystaa 75 cirbad ka jabtay aan loo samaynayaa waxaan joogaa jidka warshadaha meel ku yaal xaaji kamsiin laba shirayna wata shalayaan magaalada ka diray indha cadda iyo aadan naga tagaan dagaalna geliseen naga bax magaalada waana iska dirinay wuxuu ka xun yahay xooggii aan lahayn qiimihii aan lahayn kaarkii aan ku dagaali karnay
إن الكبابي أرجع سنة الكدقي شبغنا لا إيجاناي إن الكوردي أرسي أو مريكا نجا أرسناي أنك هبر جدرو عيدي تاجرني قاب كستا ونلو دلي كرو إن أنجلنو مرة بعد وحوش بقى نعدي أنت سو وضع أنك كسر عني قاب كينو لو دلي لها إنه جلو أنك إسرائيل لما دقاشين هبر جدر هدان نهي قف كستو هبر جدر ساسا لغا ور إسرائيل بكاري جوكتا وحرق البيت حمري دقنتهي سومالي دقيهين لما دقالي كردو ويكانتي عربا لدقالويس وحل إيبناي واكلونكي هبر جدر وقلمدو وحل إيبناي واشرالكي هبر جدر وحل إيبناي وسفاردي هبر جدر وحل إيبناي دول بهانتي أجنبي لا شقية وسنجلي أجنبي لا شقية ودارو إيوه نين لليهي نين لفت نين أهدي إليه كوريا جرونا عاير محل لو غير ميغريشنك مستفدو حلو إمارات كلا شقية وياي waxaan rabaa marka saad u fahamtid Soomaalidu markay ku kala adkaa waayeen qori isbahaysay goobteen habar dir ma gooban wali waxaa la joogaa 2026 dadka habar gidir cid walba oo adduunka heshiis waa u ogol yihiin qoorqoor waa undercover waxa waaye holac qariso nimu hoos fadhiya fiqi nimu hoos fadhiya mahad nimu hoos fadhiya inda cadde wuxuu u haystaa haddii ilaahay ku roon yahay dadkan in dambi in la geliyo aysan qaadi karin ma dhulka habar gidir ay degan tahay waa laga bannaan baxay maxaa loo bannaan baxaa dadkaas shidaalkoodii raxaweyntu iibinayso kalluunkoodii dhulbahantii warsangeli iibinayaan xilalkoodii la kala qaadanayo cid walba okay axmed madoobe etoobiya kenya siciidani etoobiya iyo imaaraad iyo israa'iil iyo cid kasta isaaq israa'iil jabhadihii afarta ahaa mid habargeeda horkacaysu waa UEC abgaal israa'iil iyo azerbaijan iyo turki iyo xiriir dibada ma haysa ahaa adigan kula jira kule ma qoro wax kale calool waaye wixii lagu shubaa ay gasha ixsaanna ma qoraan maxay marka nagu tireen waxaan rabaa mar labaad inaan halkan ka qiro marka xasan sheekh maxamuud magaciisa waa qirac nin habar gidira oo iska dhacay uma hayo waa khatar expert ku ah barashada dabeecadda habar gidir waa nin bartay daraaseeyey xilligiisii ugu badnaa qabiilka habar gidir wax kale ma baran xasan sheekh professor ma waa professor yaqaana dabeecadda habar gidir waa nin yaqaana garanaya qualitigooda tiradooda meeshay ku yaalaan iyo rabitaanka adduunka sida loo rabo waa nin reer galbeedku ku dhaheen ma haysata habar gidir waa nin carabtu ku tira ma haysata habar gidir sidaa awgeed inuu haayo wuxuu u muujinayaa waa dilaa waa barakicinaa waa ku diganaa xeelkuu ka qaadaa dabla cidid soo u toogto u muujinaa cid walba inta ma fahamta sidaa awgeed waxaan rabaa inaan mid ku dhaho walaalow haddaa habar gidir tahay deked ma lihid dhuusan mareeb 20 kilomitir kabadi shabaabaa jooga dadkaaga muqdisho waddooyinka ay degaan lama dhisay waddooyinka kalena la dhisaa dadkaagu waa cashuur bixiye adduunku maanta waa ka gudba xilligii dhishikiyaalka laysu qaadi jiray isbahaysi ma leedahay waay midda ugu daran ku sheega caawa waxay tahay marka dadka habar gidir midaan rabaa inaan dhaho imaaraad niman ma la yidhaah waa niman qaraaba aan nahay maxaa dhacay dheh walaalow habar gidir aad tahay dooma waxaa soo rartaa hindi leeyihiin doomaha aad soo rarto hindidu le hindubayay ka soo baxaan ma la socotaa imaaraadku inay dhihi karaan 200 doomoodu habar gidir u socota badda kurrida lacagta annakaa dhiibaynee ma la socotaa hal maal in lagu deji karo wandhay aree bari nahi inta dhaa hindida baddi kurridee war imaaraadow annaka habar gidiraan nahay niman caayir la yidhaahaan ka sii nahay waxaan haynaa haddii ilaahay kurri anuu habar gidir kala qaadin beerta sheekh zaa'id annaka haynaa
qaraabaan nahay isma dagaashanin colkeenna ma qaadi karno abgaal idinlama dagaashana majeerteen idinlama dagaashana ogaadeen idinlama dagaashana raxaweyn idinlama dagaashana business peopleaan nahay walaalayaal carabaad tihiin ehelaan nahay dagaal idinma qabno ninka saa dhahaya waa ninka alaabtiisa hubyo ay ka soo baxdo imaaraadka sidaa awgeed tabarteenna aan soconno mar labaad waxaan rabaa inaan dhaho dadka habar gediray soomaaliyu markay dagaashay soomaalidu markay qori ku kala adkaa weysay isbahaysiga goobteen ilaa hadda qabiilkan isbahaysiga gooban ee carabkiisa ruugaya ee u haysta laf dhacaan leey ayaa laf ruugay lafta carabka ka jeexday laftu waa caddahay waxba dhacaana ma leh